السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان نقل السعطان ومشيش ميديا فضلا سبسكرايب وضي وحكولي ميسو أننا وحان كيلينا ديلي قلين ما أنت قصة أننا وحان كسو قادنينا نينكي بيرليد أها يدميركي يدبقي وجوغي وحالي رادي نين بيرلي ayaa waxa uu lahaa beer xoolo aad iyo aad u fara badan waa uu lahaa xaaskiisana waa ay la nooleed sidoo kale waxa uu joogay dameer iyo dibiga waxa uu ku fashaa oo falaa beeraha dameerkana waxa lagu soo dhaamiyaa biyaha lagu soo dhaanshaa markii adeeg magaalada loo qaadayana waa lagu qaadaa noloshu sida saas iska ahayeen ayaa maalinkii dambe waxa sheekaystay dameerkii iyo dibigii ayaga oo ka sheekaysanayay shaqada aad iyo aad ku faraha badan ay ku jiraan dibigii ayaa waxa uu yiraahday ninow noloshu waa cadaalad darro anigu maalintaas oo dhan ayaan beerta ka shaqaynayaa oon falayaa oo jajabinayaa adigana mar yar un baa lagu raranayaa waa lagu soo celinayaa kadibna firaaqo iyo nasiino badan ayaad helaysaa anigana subaxdii ilaa iyo maqribkii oo dhan waxaan ku jirayaa shaqo ayaan ku jirayaa sidoo kale sheekadii dhex martay dibiga iyo dameerka waxaa maqlaya oo dhageysanayay ninkii iska lahaa ninkaas oo ilaahay bad ahaan uu siiyay fahamka luqadaha dameerkii ayaa dibigii waxa uu ku yiraahday ma doonaysaa in aad nasato dibigiina waxa uu yiraahday haa haddaan helayo dameerkii ayaa dibigii waxa uu ku yiraahday markii biri la gaaro waxaa iska dhigtaa qof aan kici karin oo shaqayn karin iska dhig haddii gaajo ko isla raashin ugu keenana ha cunin kadibna inaad xanuunsan tahay loo qaadanaya waana joogaysaa dibigii arintii ayuu go'aansaday waxauna iska dhigay inuu xanuunsado waagii markii uu bariyay ee xilligii shaqada la aadi lahaa ayaa dibigii waxa uu iska fadhiisay xiradii ninkii dibiga lahaa oo og sheekadii dhex martay dibiga iyo dameerka ogna waxa uu dibiga sameynayay ayaa waxa uu isku dayay dibiga in uu kiciyo si kasta haddii la yeelay dibigii in uu istaago waa uu diiday asaga oo iska dhigayay tacbaan saa'id iska dhigayay raashinkii iyo wixii loo keenayna in uu cuno waa uu diiday arintii ayuu ninkii aad iyo aad ula yaabay oo yiraahday maxaad ku samaysaa asii xaaskiisa markay tashadeenna waxa ay yiraahdeen booska dibiga maanta waa in dameerkii la geliyaa arintii markii lagu heshiiyey ayaa waxaa la aaday dameerkii ayaa la raray waxaana loo raray beertii ayaa loo raray maalinkaasna beerta asaga ka shaqaynayay subaxdii shaqadii oo bilaabay ilaa iyo maqribkii markii galabtii la soo noqonayay ayuu waxa uu ka shaqaynayay beertii dameerkii oo aad iyo aad u daalan caajis badan iyo daal badan dareemayo shaqadan uusan aqoon jirin aan nasiino lahayn ayaa galabtii dambe waxa uu ku soo noqday gurigii waxa uu la kulmay dibigii oo meesha iska joogo iska nasanayo dibigii ayaa waxa uu ku yiraahday walaalkaygii oo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay qaab aad ku nasto ayaa ii sheegtay dameerka laakiin aad ayuu xanaaqsanaa sababtoo ah khiyaanadii uu sameeyey asaga ayay ku soo noqotay maalinkaasna shaqo uusan tabar u qaban karin ayuu soo qabtay markii ay cabbaar sheekaysteen ayay iska seexday habeenkii subaxdii markii uu waagii baryay haddana dibigii hawshiisii meeshii ayuu ka bilaabay oo waxa uu iska dhigay in uu tacbaan yahay uunan bixi karin isla maalinkaasna waxaa la kaxeeyey dameerkii oo waxaa loo dhigay beertii ayaa loo dhigay si uu shaqadiisii u soo qabsado dameerkiina maalintii labaad sidaas ayuu u shaqaynayay oo shaqada sida ugu jiray oo beertii u fulayay oo carada loogu jabinayay ayaa waxaa lagu galbeystay dameerka waxa uu dhahayay dibiga waxa uu sheeganayo waa runtiis waxaan u malayn jiray in aan anigu ka shaqo adagahay laakiin shaqada xooggeedu ayada ayaa qabto
ilaan shaqada si kastay u culus tahay haddii mar un laga nasanayo waa faa'iido badan ayaa la qabaa. waxa uuna ku fakeray sidee aad dibiga shaqadiisii ugu soo celin kartaa, sidaan adiga ma ahaan kartid, dhagartaanna adiga ayaa soo jiiday. dibigii markii dameerkii guriga lagu soo noqday ayaa dibigii ka waran shaqada iga waran yiraahday. dameerkiina waxa uu yiraahday, niyo waran ma ogid, ninka oo waxaan arkay maanta dad kale la tashanayo. waxa uu yiraahday, dibigii waa xanuunsan yahay, shaqada ma kari karo, duq ayuu qaatay. ayakana waxay dhaheen maxaa samaynaysaa ayay ku yiraahdeen. waxa uu ku yiraahday, waxaan rabaa dibiga inaan kaxeeyo oo suuqa geeyo oo ninka kawaanlaha ah ka iibiyo. kawaanlahaas ayaa qalayo hilibkiisana waa uu iibinayaa oo gadgadayaa. aniguna dibi kale oo xoog leh ayaan soo iibsanayaa. dibigii markii uu arrintii maqlay aad iyo aad ayuu u naxay. haddii mar ay biraan imaatay shaqada ayaa ka roon ayuu is yiraahday. ninkii oo xoolahan iska lahaana waa uu maqlayaa oo waa uu dhageysanayaa oo markasta ay soo celiyo waxa ay ku sheekaysanayaan degda ayuu taagayay. waagii markii uu baryay dibigii oo aad iyo aad u faraxsan oo raashinkii cunayo rarkiina diyaar u ah ayaa soo baxay. ninkii iska lahaa xoolihii aad iyo aad ayuu u qoslay dhagarta oo dameerka u degay iyo dibiga sidoo maanta shaqada uu diyaar ugu yahay. maba ahanba dibigii la kicin weysanaa ma ahan, waa dibi diyaar u ah in lagu shaqeeyna diyaar u ah. dameerkiina markii uu arkay dibigii oo soo baxay aad iyo aad ayuu u farxay. haddii aan marba dhagarta keenay tii aan ku badbaadi lahaana waa in aan samaystaa. subaxdaasna dibigii asoo shaqadiisa ku faraxsan reyn dareemayo oo weliba weji diyaarsanayo si aan suuqa loo geynin ayuu shaqadiisii aroortii horeba isku diyaariyey oo una ka lahay. maantana halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa sheekadeenii dibiga, dameerka iyo ninka. qisadani maxaynu ka fahmaynaa? weliga dhagar iyo khiyaano adigoo dib kugu soo naqaynaysaa ha maleegin. waxaa lii god sireed ha qodin, ku dhici doontida ma ogide. dameerkii dhagartii oo dhigay ayuu asaga ku dhacay, inkastoo markii